السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan waa walaashiin Sacdiyo Cooking oo maanta idin soo bandhigaysa fruitka qayb ka mid ah. Hore waxa ula socoteen fruityo badan inaan soo bandhigo. Fruityadan waxa idinku soo bandhigaa maadaama Ramadaan ahayd inaad ka faa'iideysatiin waxyaabaha caafimaadka ku jiro. Hadda maadaama Ramadaantii dhammaanayso gabagaba tahay maanta ugu dambeyso ay ahayd kulaylihi noo bilowday saa ogtihiin xilliga kulaylaha lagu jiraa maadaama xilliga kulaylaha lagu jiro in la badsado cabitaanka maadaama uu jirka u baahan yahay cabitaan badan waa xilliyada laga faa'iideysto marka qabowaha la gaaro shaah badan kafee waxaas la cabaa laga xilligan camal waa xilliga isqaboojiska oo la isqaboojiyo biyo badan la cabo fruit badan la cabo jirka la qaboojiyo jirka winter 6 bilood la soo dhaafay 7 bilood la soo dhaafay 8 bilood la soo dhaafay shaah cabayo biyo badan aan jirka aan helin hadda nafaqo waxa la barnaamijkan waxa la dhahaa nafaqo jirkaaga fruitka had kor waxa idin soo geliyo noocyo kala duwan marka insha Allah waa idin soo gudbina step by step marka haduu Ilaahay idmo waa number 2 maleena kan mise number 3 ma aqaano kuwa badan ku jiro waxa ku jira maleena 1 2 3 ku jiro kan number 4 waa insha Allah wuxuuna ka kooban yahay saa u jeedaan leentaas iyo karootada marka waa noo soo fiiqa insha Allah marka karootada noo soo fiiqa mishiinkaas meesha yaalo insha Allah kaasan ku shiideena dhaladana lagu shubaa haduu Ilaahay idmo marka la socod wanaagsan karootada fiiqa haduu Ilaahay idmo taas waxaan rabaa wax idinka idin leh wax idin leh maxaa la dhahaa ishak faa'iido idin leh inaan idin soo bandhigo cunto kariska uu ku jira asaga kama marna laakiin xilliga hadda lagu jiro waa xilliga aadka loogu baahan yahay wax in la cabo marka aniga waxyaabo badan oo waxa idinku soo zaa'idin doona insha Allah xagga cabitaanada sida cabitaanada hatta marka fruitka wax badan soo gadatid saa u xareysan lahayd oo hadhowti marka u shiidan lahayd barafka uga soo baxlay suuna kaaga halaabin qaybta labaad xareynta fruitka filijeerka ay idin bilaabanayo qaybta koowaad waa soo bandhigay anigoo xareynayo batiiqa hadda mar labaad waxa idin soo bandhigi doonaa waa ila socotiin amalena mar labaad waxa idin soo bandhigi doonaa insha Allah anigoo xareynayo fruit kaleeto kala duwan mooskiyo si gooni aan u xareynayo cananaaskiyo si gooni aan u xareynayo qarihiyo si gooni aan u xareynayo cambihiyo si gooni aan u xareynayo marka intaas bacayaan ku xirxira insha Allah marka intaas bacayash ku xirxiro waa xareysane waxa soo baxsanay maalinta rabta canaas inaad shiidatid canaas waxa ku darsan lahayd hadaa kaligiis rabta inaad shiidatid maalinta rabta moos inaad shiidatid iyo spinach mooska soo baxsanay maalinta rabta cambe kaligiis inaad shiidatid cambaha soo baxsanay hadaa wax kale rabta inaad ku darsato cambaha wixii kala soo baxsanay inta raali ahaado shanqarta ka raali ahaada hawlaha meeshan ka socoto marka haduu Ilaahay yiraahdo waxa idin soo bandhigaa insha Allah wax tar idin leh oo dhaqaalihiina qayb ka qaadanayo qaybna ka qaadanayo insha Allah caafimaadkiina qof walba cunto horta waa karin yaqaana ma sha Allah waase lagu kala badiyaa saa u jeedaan cuntada qof walba uu yaqaana qofka si uu karsada laakiin waa la kala badiyaa marka qof walba qof uu ka faa'iidaa adiga waxa laga yaabaa inaan wax ka faa'iido soo bandhig anigana waxa laga yaabaa inaan wax iga faa'iidid waa soo bandhiga aan kala faa'iideysana la dhahaa marka YouTube-ka waxa la dhahaa aan kala faa'iideysano iga faa'iideyso aan ka faa'iideystee la dhahaa magaciisa marka aan kala faa'iideysano walaalahay qalata u fahmina idinka subscribe-ka naga baqiilina insha Allah iyo share-ka iyo like suulka kor u taagan gambaleelka daarta si oo waxaan soo geliyo oo ula socotiin isla markii uu gambaleelka ku soo dhacayo waxaan soo geliyo horaa ka arkaysaa haduu Ilaahay idmo marka
weli waxaan wadaa kaarootada maanta kaarootada wuu badan yahay insha allah kaarootada way macaan tahay iyada liintana way macaan tahay laakiin wax yar oo malabaa lagu darayaa hadduu ilaahay idmo marka kulley waxaan ku dari doono insha allah waa idinla wadaaga hadduu ilaahay yiraahdo kuma badinayo malabka maadaama liintana macaan tahay kaarootadana macaan tahay laakiin waxaa idin sheegaa inuu aad iyo aad liintana ujeedid waxaa laga helaa vitamin C kaarootada iyadana sidoo kale indhahay u fiican tahay aragtida way ka caawina kaarootada aaday raqiis u tahay qaali ma aha afrikadoo kale xataa kenya oo kale baaldi dhana 100 shilin lagu soo gadana markii ugu dambeysay aad iyo aad iyo aad raqiis u tahay lacag badan kaaga baxayso adiga marka waxaa sameynaya soo gado caafimaadka u fiican tahay indhaha especially aragtida aad u caawiya dadka oo raba diabetic ah oo raba caafimaadkooda kaarootada waxba kama dhibaayo caafimaadkooda waxba ma gaarsiinayo hadda cambaha oo kale waa macaan mooska oo kale waa macaan waa laga yaabaa in sokorta waxyar kor u kacdo inkastoo fruit uu yahay laakiin fruitka qaarkiis sokorta wuu kiciyaa canabka cambaha mooska cananaaska waxa macaan oo dhan waxa dhanaan ma kiciyo marka waxaa idin sheegaya marka kaarootada oo kale vegetable waaye haddaa kariso horta wax macno ma sameynayso markaa karisid ee dab gasho fitaminkeeda wuu dhintay wax walba oo aad karisid fitaminkiisa wuu dhintaa ma soo baxin wax kastoo lagu sheegayo hadda barbarooniga oo kaleeto kan guduudan fitamina ku jiro fitaminkiisaas haddii aad karisid wuu ka dhintay wax walba haddaa karisid fitaminka wuu ka dhintay marka annaga badanaa marka waxaa ku dadaalnaa kaarootada aan salaataan ku darsanaa waxaa ku darsanayo kaleeta cabitaan ahaana u shiidanaa marka cabitaan ahaan u shiidano fitaminka already waan helnay fitaminka aan ka raadinaynay waa helnay marka aan shiidid straight away fitaminka waa heshay because ma karinin la-aana ma karinin marka ansalaatada markaa ku darsatid fitamiinkii ma ka dhimanin isagana laakiin haddii aad karisid waxba faa'iido makuu sameynayso waxaad sameynaysaa saan camal u shiido markaasaan camal u shiidatid ama ansalaatada intaa yaryaraysid ilmaha hadday ku cunayaan ansalaatada ku dar haddaa adiga aad xiiseynaysa ansalaatada ku darso waxaa la dhahaa youtube-kayga magaciisa waxaa la dhahaa Sacdiya Cooking ka sokow ka faa'iideyso youtube-kayga adigana aan kaa faa'iideysto adigana aan kaa kaarootada bahalkan kaarootada iyo kaa halaabin because xoogaa iyada xataa dee taalo ay kaa halaabeen marka waxaa sameynaysaa liimadii aan soo fiiqeynaa iyadana kaarootada hadday iyada kaa halaawdo ama halaawsho oo u dhadhowdaha naftirkeeda waxaa suubinaya fiiq jarjar barafka geli fiiq dhaq jarjar barafka geli waxyaabo badan casiif garaynaysaa waxyaabo badan ay iga faa'iidi doontiin insha allah idinkana xaggeena insha allah subscribe-ka naga baqiilina waxyaabo waxaa laga yaabaa adiga kugu jiro qof walaalka inuu ku jiro isma xasdo waxaa sameynaysiin insha allah adiga xataa wax fiican hadaa soo bandhigtid waxaa lagu dhahaa maxaa la dhahaa in lagugu garab istaago oo lagu dhaho well done wax fiicanaa soo bandhigtay laakiin qofka haddii aad la dhihin wax fiicanaa soo bandhigtay wuxuu noqonaa wuu give up gareynaa marka soomaalina waxaan naqaanaa waxa youtube-ka qofka ku jiro waxaa loo maleynaa inuu ka taajira youtube-ka anmaa lacag uu iga sameynaa ma siinayay maxaa la subscribe waxaasnimo inteeda lacag ma aha adiga ma siinaysa lacagta
waa wax yaroo macno lahayn sentiyaal ah ma aha wax oo aad ku taajiraysid oo weyn meesha kama qaadaysid laakiin qofku muxuu ka faa'iidayaa qof walba waxbuu usoo galay qasab ma aha qof lacag uma soo gelin qof waxaa laga yaabaa magac inuu raadinayo qof waxaa laga yaabaa mansab inuu raadinayo qof waxaa laga yaabaa inuu uu raadinayo inuu dadku wax u faa'iideeyo qof waxaa laga yaabaa wuxuu jecel yahay cunto karinta inuu cunto kariyo marka inuu cuntadiisa soo bandhigo qof waxba ma aha youtube-ka macnihiisa in laga taajirayo ha u maleynina youtube-ka taajirnimo looma soo galin qof walba hobbigiisaa keena meesha qofka cunto kariska jecel wuxuu rabaa cunto kariskiisa inuu soo bandhigo qofka jecel fruit inuu sameeyo wuxuu jecel yahay fruitkiisa inuu soo bandhigo qofkii jecel inuu heesihiisu kusoo bandhigana qofkii raba inuu wacdiyo wacdigiisu kusoo bandhigana kii raba inuu sheekeeyo sheekadiisu kusoo bandhiga marka saas ula socdo walaalahee hadda saa ujeedaan liinti waa waxaan jarjaraan ku shubooyo waxaan ku shubay saa ujeedaan liimadii oo aan soo jarjaray aan ku shubay meeshaas haddana waxaa jarjarayaa saa ujeedaan karootadii raalli ahaado marka soomaaliyey qofka youtube hadduu soo galo macnaheeda ma aha inuu idinka taajiraayo waxaa laga yaabaa qofkaas walaalka ah inuu waxyaabo ku jiray inuu rabo inuu idiin soo bandhigo uu la aamusnaa muddo marka idinkana qofka waxaa la dhahaa sheeg well done wax fiicanaa samaysay hore u soco dadka lisma xasdo waxaa la dhahaa intaasoo ajnabiga ku jiro youtube-ka intaasoo waxaa ku jira oo cadaana ku jira cid walbaa ku jirta waa la fiirsaa idinka keliya soomaali keliya ma fiirsato cid walbaa fiirsato hindiyaa ku jirto cid walbaa ku jiro youtube-ka marka wax unbaa laga faa'iidaa aniga kula hadlaa waxbaan ka faa'iidaa waa fiirsadaa dadka aan fiirsado hor soomaalida maba u xisaababa soomaalida dhan subscribe-ka waa u saaraa dadka kaloo aan isleeyahay waxyaabo faa'iido leh oo benefit leh oo dadku usoo bandhigayaan waa subscribe gareeya caddaan ha ahaado cid uu raba ha ahaado kuwa aan ka faa'iido waa usoo bandhigaa marka waxaan ku gurayaa saa ujeedaan karootadii hadda ku gurayaa marka hadda waxaan ku shubayaa malabkii wax yar iyo biyihii insha allah waxaan ku shubaa insha allah malabkii iyo biyihii ila socda waa idinku dheeraaday laakiin idinku dheeraaday ma xumee wax fiicanaa idin soo bandhigayaa waxaa idin soo bandhigaa xataa insha allah waxyaabo kaleeto oo faa'iido idin leh waxaan furaa raalli ahaada halkaas waxaa soo dhigay waa malabkii maan raba inaan ku daro haddii ilaahay idmo waxaan ku daraya malabkii halkan waxaa iigu jiro saa ujeedaan malab kale oo ii harsanaa ee iigu jira intana malab cusub hadda aan soo furo waaye marka kan haddaa u baahda insha allah waa kusoo darsanaa hadda laakiin waxaan ku daraa malabkii dhalada kale iigu jiray waxaa idinkugu qabanaya insha allah mashiinka raalli ahaada kugu qabanaya mashiinka raalli ahaada halkaas waxaan ku daray hal musqaado oo malab ah macaan badan ma u baahno karootada iyo liinta iyadaa macaan marka qaado yar oo kaleetaan inta aan ku zaaideysaa ujeedaan waxaan filayaa inaa ujeedaan raalli ahaada
هذا نكون كسمانة إن شاء الله شيدوغي أنقلينا شيدوغي أنقلينا هذا برفك اللي قلنا ولا قبوجنا حوجا سأوجد أن الله ذي ملب كأيه قد ماضي ومجيدا بيوكو درصدي سأوجد أن هل إيهاف أنكو در هل إيهاف هل كوب إيهاف وبيئة 1 كوب and half marka إن شاء الله هذا نشيلنا إن شاء الله مشينك سأوجدان waxaan ku shubay mashiinkii marka waxaan rajeynaa inaan ka bogateen asaga mashiinka idinkugu aadina raalli ahaada waxaan sameynayaa insha Allah start hayarkan geena start hadana insha Allah ujeedaan waxaan faastiga u geeyay raalli ahaada because kaarootada way adag tahay smoothie hadda marka qaybta smoothie hadda geenayna qofka haysan mashiinka caadiga oo wax yaayada lagu shiito xataa uu ku shiidan karaa marka hadda qaybta smoothie aan geenayna insha Allah hadda ujeedaan qaybta smoothie-gana hadda waa ka damiyay waxaan sameynaynaa insha Allah waxaan kusoo shubaynaa halkan raalli ahaada waxay idinkugu aadinayaa mashiinka galaaskii buuxo waa kaas halkaas ku shubnay saa u jeedin waxaan u maleynayaa inaad si fiican uga bogateen idinkoo raalli ah waa mahadsantihiin hadda wax naga faa'iiday tamis abka kor u taag suulka haddaada naga faa'iidinne comment hoos noogu soo reeb sababta aada nooga faa'iidin waa mahadsantihiin halkaas waxa inoo yaalo juuskeeni oo maanta karoot iyo liin ka kooban hadda frijeerka la gelina xoogaa waa la qaboojina insha Allah barafku ma shiidin marka insha Allah subscribe-ka waa xaqiina tamisa abka share-ka like-ga waa kaasa waa mahadsantii asxaabteeda qaaliga ah iyo familkayga intii YouTube-ka saaxiib igu la oo dhan familka ka tirsantii insha Allah